xogti ka maqnayd iyo xaaladihii qarsoona kala saxa raadiyo xiriyo hoyga wararka ogaadeynaya codka shacabka gudoomiyaha hogaanka gaashaandhigga ee jabhada wadaniga oo xoreynta ogaadeynaya naftiihura sheekh deeq oo ku sugan jiida hore ee gobolka Jigjiga kulan hawleedna halkaasay kula lahaa qaybaha kala duwan ee taraakiisha hogaaminta ciidamada qalabka sida ee xoreynta ogaadeynaya ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhnay waxaana waraysigaasi gudoomiyaha hogaanka gaashaandhigga sheekh deeq ugu horreynba aanu weydiinay xaaladda dalka abaaraha iyo weliba hawlaha halganka. بسم الله الرحمن الرحيم آيات بعض ما هرسنتهاي وأنا السلام يا دمانتين بهوين خير حرية فرصة قالية عاد السيسان وأنا كلمة العلم يا تا هدان كجذبه وقاعدين يحل جن هدا يكتشرتو عملها نرت وحل حاجة نور كروب وكما وردين قبل الله الضالة يقر حي إن كملها قدي يافدر نور كعبارة كتشرة dadkiina waxay raaceen meelihii deegaanka ugu dhawaa dawladdu kala fog bayna u hayaameen taa waa xagga cimilada galbeedka ogaadeen sida gobolada Jigjiga Nogob iyo Dhagaxbuur xaaladoodu way roon tahay khatar badan ma laha roobka meelo ka daay iyo meeluna ka diinba laakiin dhulka abasho badan oo xagga xoolihii iyo dadkii ma ay jirto dadweynaha ogaadeen saad la socotaan 80% waa duur ku nool ama waa xoolo dhaqato intaas waa xagga cimilada iyo jawiga dadka ogaadeen ay ku sugan yihiin geeska Afrika abaaraha ka jira ogaadeen dadka abaaraysan bay kamid tahay nasiib wanaag laakiin malaha iyadoo dawlad matasha shacabka dhibkiisa oo ka hadasha marka laga reebo ururka hubeysan ama jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen oo iyadu gobonimo doonaha inta badanna shacabkeeda inay beesha caalamka u sheegta mooyeen aan kaalmo gacan qabadaha aan u fidin karinin balse kana difaaci cadawga xorriyadooda iyo aayahoodana ka hawlgeli una ducaynaysa inuu ilaahay abaaraha iyo masiibooyinka ka saaro dadka ogaadaya dhinaca kaleeto wali waxaan si maaragtay habsan u wadnaa halgankii hubaysnaa ee waday jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo guda iyo dibadba shacab weynaha ogaadeenyana waa shacab arrinta iyada jecel raadli ka aha isagaana halganka wada isagaa waardiyaha isagaa ilaala ah isagaa sahaydi ah isagaa dagaalyahana shacabku isagaa wiilka dareeraya uu ka dhashay isagaa aqoonyahanka soo saari oo halganka ku biirinaya taas waa qodobka kale waxa weeye gumaysiga aan la dirirno waa laba nooc waa hubeysan yahay oo waa ciidamada cadawga wayaanaha isaga oo karmaho oo qowmiyaad ka kooban tirsi yar oo magaca Soomaaliga ah wataana uu kamid yahay inta badan loo adeegsada indhe iyo turjumaan inay macnaha dadka tusaan iyo wadooyinka iyo inay turjumaan noqdaan qodobka labaadna waxa weeye gumaysigu wuxuu ku diriraa xagga saxaafadda dhaqaalaha arrimahaas uu ku dagaalamaa tababarka bariyahan dambe marka dhanka ciidanka militariga wayaanaha wax hadda khatar ah oo badan oo aan ka sheegan karnaa ma ay jirto balse waxaa jiray inay afka aad uga hadlaan waxaan jirinna ay sheegaan tusaale ahaan cadawgu kolkala hadaad la dirirayso gumaysiga diidan tahay cadawba yaad u tahay marka wax allaala wixii xumaan la oran kara intuu sheego inuu banaanada khalkhal geliyo wuu isku dayaa in wax la duubo ciidanka cadawga oo la laayay oo meydahoo daadsan intay duubaan inay yidhaahdaan annagaa laynay waa oo wanalaf iyo wixii lamid ahaa labada sheekh deeq waan ka dhaxgale ee hadda sagaalka gobol ee ogaadeen iyo xageed kaga sugan tahay adiga iyo ciidanka hogaaminaysidba ma sha Allah dhulka ogaadeen horta waa dhulkeeni meel kastoo dhan baanu ka marnaa siday tahay haddaan kugu sheegana xilligan xaaliga gobolka Jigjiga ayaan ku sugannahay nafti hore ahaan deeq iyo ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeen ee jiida ka howlgala mana nihin dad la raadin karo oo ama khatar ah oo meeshay joogaan la qariyo ma nihin dadkooda u muuqda oo duruufta dadku ku jirana la og meel kastana dhulkooda ka mara hadduu galbeedka yahay hadduu koonfurta yahay iyo hadduu waqooyiga yahay hadduu bartamaha yahayba iyaan nahay marka halkaasaan ku sugnahay waxaad carabka ku dhufatay gudoomiye in weerarada aad la gashaan ciidamada gumaysiga Ethiopia iyo hawaarinta ay soo adeejistaanba
in ciidankii iyaga laftoodii aad ka layseen intay duubaan ay kaamiradaha iyo adduunka tusaan oo ay ka dhigaan inay ONLF yihiin arrintaa maxaad ku cadaynaysaan waxaan ku cadaynayaa meelo kala duwan oo sawir noocaasa laga qaaday tusaale ahaan operationka la yidhaahdo nasri ee ka dhacay galaalshe oo intii cadowgii lagu weeraray lagu burburiyey hantidiisiina lala wareegay baktigoodii daasana intay duubaan inay yidhaahdaan waa ONLF taasaa kamid aan ku cadaynaya okay waan gartay hadda maadaama aad ku sugan tahay areada jigjiga aad ku sugan tahay aad sheegtayna cayintayna barta aad ku sugan tahay miyaysan khatar idinku ahayn oo wax cabsi ay ka qabin arrintaas maya waa gumaysi aan la dirino oo tabar xun oo doola saad la socotana hadda waxaan u nahay urur ballaaran oo hubaysan oo awood leh oo qabsada degmooyin tuulooyin marka taa iyadaha waxa weeyaan waxaan ereyga uga dhawaajinayo keliya taa inay dadka qaarkii u maleeyaan joogitaanka meelahaan u joogno inay khatar ku jirto inaan ku ifiye khatar naguma anaga waa tahay dacayadahan hadda sheegtay ee gumaysiga Ethiopia uu adeegsanaya ee warbaahinta ahi sidee idin saamaysay idinka ka guud ahaan ama shacab ha ahaato ama ciidamada qalabka sida laftooda ha ahaatee shacab weyne horta waa xogogaal isagaa arkaya dhacdada isagay ku dhacaysaa cadowga hagardaamadiisu isagay ku dhici waa xogogaal shacabku saamayn kuma laha gudaha ogaadeeya waa gartay guddoomiye intii dacayadahan ay bilowdeen laga soo bilaabo bishii 3 ee 2010 xilligii ay xaroodeen ay isdhiibeen ururkii al-ittihaadka ahaa ilaa maalintan aan wada hadlayna ee hadda ahaa awoodda ciidanka qalabka sida ee xoreynta ogaadeeniya maxaa iska dhimay maxaa ku soo ziyaaday ma sideediiba wax isbedel oo haba yaraatay aad dareenteen ama aad aragteen ma jira wax badan baa ku kordhay ciidanka waxaa bishan hadda aan ku jirno 10keedii dafcadii afraad ayaa hadda ka soo qalin jabisay tababar ciidan gobolka Qoraxay mar walbana ciidamadeenu saasay u tababartaan waa lagu soo biiraa tababarada ayaa loo xarayn qayb walba waxay leedahay dafcada koowaad labaad saddexaad iyo wixii lamid ah marka xaggan tirsigii wuu sii badanayaa tababarkii baa socda qorshihii ciidanka socda ishubayntii baa socota kobcinta tayada iyo tirada ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeeya meel sare ayay maraysaa waxaana laga dareemayaa gebi ahaanba dhulka ogaadeeya dhaqdhaqaaqa ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeeya wayaanuhuna dhiilkoodii bay ku tageen maxaysatadii ay soo dirayeen aan looma ooyaanka ahaa say seefta u waday ama xabadda u dilaysay maanta kuwa waaweyn oo la yaqaano ayaa barooranaya waa kaaga baxay waan gartay guddoomiye ugu dambeyntii nimanka maxaysatada ay sheegayso ee hawaarinta loo yaqaano ama looma ooyaankaba waxaan ugu maqaalaha in bil mise 2 bilood ka horba ay aad isugu soo dhibeen ciidamada qalabka sida ay xoreynta ogaadeeniyo oo ay ka soo carareen gumaysiga Ethiopia arrimahaasi maxaa ka jira waa arrin hubaala weeye kolkii horeba qoorqabad bay ahaayeen waxay ahaayeen la raafayay waxay ahaan beel intay cadowga u shiriyo odayaasha dadkeena dagaalamo ay dhahaan sidaasay nafahooda ugu furanayeen oo warinta hebelow la dili lahaa ee adigu meeshii tag wax saa lagu ururinayay buu ahaa oo tirsi badan ahayn ugu dambeynna dadkan wax lagu qastayay buu ahaaye in badan baa iskaga tagtay waa la soo dhaweeyay kii ciidanka kamid noqonna ciidankiibuu kamid noqday kii yidhaahda waan iska joogayaana waa loo ogol yahay kii yidhaahda dibadahaas iyo meelahaasaan u kacayaaye nool halaysiiyana sahayda intaasina ayaan usii gudbinaa waana tirsiga ugu badan ee xilligan maaragtay imanaya intii aanu soo arkaynay weeye kuwa iyaga sheegtay walow aynan iyaga laftoodu badnayn dad la ururiyay oo tirsi yar ay ahaayeen indhana u ahaa cadowga afkana u turjumahayay dhibaatada shacabka loo geysanayana tabriir ama macnaha inay taxliiliyaan oo yidhaahdaan waa dhib ma laha iyo axsaaso kalaan baaba loo watay dantii in laga lahaan waa laga dhamaystay waan gartay maadaama aad tahay madaxii ugu sarreeyey ciidamada qalabka sida ay xoreynta ogaadanaya guddoomiyaha hogaanka gaashaandhigga maxaad kula dardaarmi lahayd shacabka Soomaalida ogaadeynaya guud iyo dibadba adigoo ka faa'iideysanaya fursadan raadiyo xorriyo ay siisay shacabkeenu waa xogaal baynu isu nahay gobonimo doon baa tihiin shacab iyo dal iyo dibadba dhanka dibadda markaan eegno halkaa in laga sii wado abaabulka soo saaridda taariikhda dhulka ogaadeeya arrimaha iska bedelahaya geeska Afrika iyo caalamkaba inay si habboon loola socdo arrimaha koonfurta Suudaan ay ku go'day inay si fiican loola socdo shacab weynaha ogaadeeyana waa xogaale halkii baynu ka sii wadaynaa inaga oo wada jira ilaahay baana raadli ka ah arrinteena gumaysigan hadda liicay ee tabarta yar ee kala tegayana waqti dhow waynu iska soo gabagabaynaynaa intaasaan shacabka ku oran lahaa
raalli ahow guddoomiye waxaan iloobay oo aad loo xiiseynaya dhegeystayaashii iyo aad ay u xiiseynayaan oo laga yaabo inay isleeyihiinba muxuu wariyuhu u weydiin waayey guddoomiyaha hoggaanka gaashaandhigga jabhadda wadaniga xoreynta ogaadanaya arrimihii la xidhiiray labadii wariye ee Swedishka ahaa arrimahaas maxaad nooga taaban kartaa labadan wariye waxay ahayn wariyaal caadi ah gudaha ogaadanaya yimaadeen iskood bay isu wadeen ciidan kooban oo jabhadda wadaniga xoreynta ogaadanaya kamid ah ayaa amnigooda inay sugaan iyo meel isugu yimaadeen qorshe howleedkooda iyagoo wariyaasha ay wataan loona arkaynin inay maaragtay dee wax khatar ahoo badani inay markaa jirtaba oo mar hadday dadkani wariyaal yihiin iyagana war way ka qaadi kareen wayaanaha dee dadka ogaadanaya iyo ciidanka wadaniga xoreeyda ogaadanayana way wareysan kareen si wariyaniman iyadoo loola dhaqmaya iyo cadowgu soo weeraray dagaal iyo istifaacid la difaacahayo kadib adu xaasil gacanta bay cadowga iyay galeen wax yar baana halkaa in yar baa jirtay oo intuu dagaalku socday la difaacayay bay waxoogaa ka yar dhex baxeen xidhadhkii ay ku jireen ciidan wayaano ahoo meel socdaa marka qabtay saasay gacanta cadowga ku galeen taa marka annagu waxaanu arkaynay wax macnahooy samaynaysa inayna jirin dad wariyaal aho oo la qabtay wax laga buunbuuniyo iyo wax laga daba ordo maanaan wax xigmada u arkaynin balse midda in laga hadla habbooneed waxay ahayd dagaalkiina dhex maray iyo baktiga cadowga oo 12 askari meesha kaga dhinteen ciidankeenuna isagii oo nabad ahaa eeriyadiisii uu ku sugan yahay haddaba aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha hoggaanka gaashaandhigga ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadanaya naftay hura sheekh deeq oo khadka telefoonka iigu warramayay isagoo hadda ku sugan gobolkaasi Jigjiga ciidanka xoogga dalka ogaadanaya waa daljiraha u taagan danaha shacabkooda waa difaaca dalka hooyo xoogga dalka ogaadanaya